soo dhawaada akhyaaray maanta waxaan sharxi doonaa filim lagu magacaabo Tenet oo soo baxay 2020 ee daawo u taxadar. filimku wuxuu ku bilaabmayaa wadanka Ukraine dad badan oo ku raaxaysanaya bandhig faneed, laakiin isla markii waxa soo galaya dabley hubeysan oo wajiga soo duubtay, kuwaas oo jijibinaya alaabta meesha taalla iyagoo mid u tooganaya dadka shacabka ah. ciidamada gaarka ah ee Ukraine waxay imaanayaan isku mar, isagoo uu ku jiro nin lagu magacaabo Johan. kooxda Johan ayaa gudaha u soo galaya masraxa si ay u badbaadiyaan VIP-da Mareykanka, kuwaas oo iyaguna ahaa kuwa daawanaya masraxa. iyagoo isticmaalaya labiska ciidanka waxay ku milmayaan ciidanka VIP-da, waxa ayna xirayaan haamaha gaaska iyo marinada hawada si qof waliba uu seexdo. Johan ujeedada uu leeyahay waa inuu kaliya soo badbaadiyo hal nin oo Mareykan ah. waxa uu weydiinayaa ereyga sirta si uu u xaqiijiyo inuu yahay ninkii loo soo diray. kadib markuu sheego ereyga saxda ah, Johan wuxuu ka amrayaa inuu ninku dhex fariisto dadka shacabka si aan looga dhex garan inuu yahay nin khaas ah. halka Johan uu dib ugu laabanayo kooxdiisii, waxa uu arkayaa wiil yar oo Ukraine ah kaasoo aasaya bom. wiilkii yara ayaa soo cararay kadib markii la ogaaday, waxa uuna Johan gacanta ku dhigayaa bomkii. intaa kadib Johan wuxuu qarxinayaa meesha, wayna ka soo wada cararayaan iyadoo ninkii VIP-da ahaa dhaawac laga dhigay. laakiin nasiixo Johan iyo saaxiibkiis ayaa lagu qabtay tareenka, taasoo keentay in la jirdilo si looga helo macluumaad. ninkii Ukraine-ka ah ayaa helay qalab yar oo awood u leh inuu dunida dhan baabi'iyo, waxa uuna ku dhahayaa midka labaad keena. kadib markii ay diidaan wuu jirdilayaa. markaan waxay u dhawaadeen in laga qaado qalabka, laakiin Johan ayaa afka ku qaadanaya qalabkii yaraa. maalmo kadib waxaan arkaynaa Johan oo ka soo kacaya markab, taasoo uu saarnaa wakiilka sare ee ciidanka CIA-da. waxa uuna u sheegayaa inuu yahay nin daacad ah kaasoo xifdiyay qalabkii yaraa, waxaana loo dooranayaa howl sir ah. waxayna u sheegayaan koob taasoo uu ku badbaadi karo haddii uu maskaxda ku haysto. waxa uuna soo raacay doon isagoo iska dhigaya kooxda cusub inuu ka mid yahay. socod dheer kadib wuxuu u imaanayaa sargaalad Lura waxay u sharxaysaa in qalabkan yar uu kasii darnaan karo dagaalkii koowaad ee adduunka. waxayna u dhiibaysaa bistoolad xabadii laga tuuraa ay dib u soo noqoto. waxayna baraysaa hab cajiib ah oo uu ku maareyn karo xabadda. waxayna sidoo kale tustaa qalab kale oo ay ku maareyn karaan gacmahooda. intaa kadib Johan wuxuu weydiinayaa meesha uu ka heli karo qalabkan. waxa uuna aadayaa magaalo lagu magacaabo Mumbai taasoo ku taalla Hindiya, halkaas oo uu kula kulmayo howlwadeed Ingiriis ah kaasoo lagu magacaabo Neil. waxayna qorsheynayaan sidii ay ku geli lahaayeen guriga laga helo hubka cusub ee Lura ay u soo tilmaantay. fiidkii markii la gaaro, Johan iyo saaxiibkiis waxay soo fuulayaan saqafka sare ee guriga, waliba si dhuumaaleysi ah uga soo gelayaan balkoonka. Johan wuxuu gacanta ku dhigayaa howlwadeenka kala socodsiiya hubka. markii uu wax ka weydiiyay hubka, xaaskiisa Beriya ayaa u sheegtay inay xog badan ka hayso, waxayna u sheegtay in milkiilaha hubka lagu magacaabo Andrea. isla markiiba waxaa imaanaya booliska. Neil iyo Johan waxay ka soo boodayaan dhismaha iyagoo isticmaalaya xargo. Johan wuxuu la kulmayaa wakiil Ingiriis ah kaasoo sheegi doona in sida kaliya loogu dhawaan karo Andrea ay tahay in loo maro xaaskiisa Katrina. waxa uuna kula kulmayaa goob caweys, laakiin iyadu way tegaysaa maadaama aysan doonayn la hadalkiisa. laakiin isagu kama harayo oo subaxii labaad intii uu ku jiro raadinteeda waxa uu la kulmayaa tuugo badan, laakiin si fudud ayuu u leynayaa. ugu dambeyn mar kale wuxuu kula kulmayaa goobteeda farshaxanka, waxayna u sheegaysaa in iyaduba ay doonaysa inay disho ninkeeda Andrea maadaama uu ka hayo sawir agteeda qaali ku ah. intaa kadib Johan wuxuu u ballan qaadayaa inuu sawirka gacanta u soo gelin doono haddii uu ka caawiyo la kulanka Andrea. markaan waa Neil oo iska dhigaya ganacsade isagoo indhaynaya halka ay qasnadu taalla iyo habka ay hadhow ku soo baxsan karaan. waxa uuna ogaanayaa in ay fududahay in laga baxsado meeshan. Neil iyo Johan waxay ku tashanayaan in diyaaradda ay burburiyaan iyagoo la tashanaya duuliye Mahir. intaa kadib Mahir wuxuu ku dhaqaaqayaa qorshihiisa isagoo la dagaalamaya kabtanka meesha, taasoo sababtay in malaayiin dollar ay halkaas ku qasaarto. waxaana halkaas ku qarxaysa diyaaradii, halka Neil iyo Johan sii wataan qorshahoodii ahaa inay qasnada gaaraan. waxayna halkaas ka gudbayaan albaabo badan oo loo garaysnaa, iyagoo hab farsamaysan uga baxsanaya. markay soo gaaraan albaabka weyn, waxaa halkaas ka soo baxaya rag hubeysan, taasoo ka dhigi doonta inay halkaas ku dagaalamaan. waxa ayna ka gudbayaan dhammaan albaabadii oo dhan, laakiin isla markiiba waxaa imaanaya shaqaale caafimaad. waxa ayna John iyo Neil iska dhigayaan kuwa suuxsan. intaa kadib filimku wuxuu isku rogayaa Johan oo markale la jooga Beriya, waxayna u sheegaysaa habka uu qorshaha u fuliyay inay qaldaneed oo uu maray waddo qaldan. Johan wuxuu rabaa inuu Andrea dilo, laakiin Beriya waxay u sheegaysaa inuu sugo ilaa ay ka helayaan qalabka lagu magacaabo plutoniumka, kaasoo ah qalabka lagu sameeyo hubka qaxbadii lagu tuuraa dib u soo celiso. Johan wuxuu la kulmayaa Katrina isagoo u sheegaya in ay abaabusho kulan ay kula kulmayaan Andrea, waxayna ku martiqaadaysaa casho. Andrea markay is wareystaan, Johan wuxuu u sheegayaa inuu rabo inuu la shaqeeyo, wuuna ku ogolaanayaa Andrea. subaxii
dambe Andrea iyo Johan waxay isku soo raacayaan badda. Johan wuxuu badbaadinayaa Andrea taasoo ka dhigi doonta Andrea inuu si dhab ah u aamino Johan. Waxa uu u sheegay inuu sahayn qalabka loo yaqaan plutoniumka waxayna ka wada tashanayaan qaabkii ay u soo xadi lahaayeen. Waxay u muuqataa in Andrea uu doonayo inuu khiyaano Johan. Fiidkii markii la gaaro Andrea wuxuu garaacayaa xaaskiisa kadib markii Bria ninkeeda uu sheegay in Johan iyo xaaskiisu ay doonayaan inay khiyaanaan. Waxay kadib waxa uu imaanaya helicopter waxa uu ku amrayaa shaqaalihiisa inay baakadaha saaraan helicopterka. Laakiin mid ka mid ah shaqaalaha ayaa wuxuu arkayaa inuu dahab yahay waxan. Laakiin Andrea meesha ayuu ku dilayaa. Sidoo kale Johan wuxuu duleelka ka daawanayaa Andrea iyo waxa uu rarayo. Laakiin waxa si lama filaan ah ku arkayo mid ka mid ah shaqaalaha Andrea. Waxa uu keenayaa Andrea kadib markuu garaaco. Waxa uu siiyay xoogaa dahab ah isagoo u sheegay inuusan ka bixin wali heshiiskii. Maalintii xigtay Katrina waxay imaanaysaa meesha uu yaalo hubka soo celiya xabadda. Intaa kadib Andrea wuxuu ku xanaaqayaa Katrina taasoo keentay inuu halkaas ku garaaco. Dhanka kale Neil iyo Johan waxay daba kaceen gaarigii wada plutoniumka iyadoo aad loo ilaalinayo gaariga wada plutoniumka. Johan wuxuu kor u fuulayaa gaariga waxa uu soo helayaa sanduuqa uu ku jiro qalabka plutoniumka. Boolisna waxay doonayaan inay joojiyaan. Laakiin Neil wuxuu Johan ka caawinayaa inay booliska ka baxsadaan. Inkastoo si lama filaan ah ay arkayaan gaari si qariib ah u soconayo. Waxa uu Johan garwaaqsaday in gawaaridan uu wato Andrea kaasoo doonaya inuu plutoniumka xado. Waxa uu u sheegayaa ilaa 3 daqiiqo haddii uu siin waayo inuu dili doono Katrina oo uu tusay inuu gacanta ku hayo. Isla markiiba gaari rogna ayaa dib u soo kacaya waxa uuna caysanaya Johan. Johan hadda wuxuu ku qasban yahay inuu Katrina ka badbaadiyo gaarigan aan darawalka lahayn. Waxa uuna u tuurayaa Andrea qalabkii plutoniumka ahaa. Waxa uuna Johan maareynayaa inuu gaariga istaajiyo. Laakiin nasiib xumo isla markiiba waxa imaanaya ciidanka Andrea iyagoo gacanta ku soo dhigaya Johan iyo Katrina. Isagoo jirdilaya Katrina. Andrea wuxuu u sheegayaa inuu sanduuq maran siiyay Johan. Waxa uuna ugu hanjabayaa inuu Katrina dili doono haddii uu Johan u sheegi waayo meesha uu plutoniumka geeyay. Isagoo wareysigu socdo waxa imaanaya koox askar ah oo uu la socdo Neil. Halka Andrea uu meesha isaga baxsanayo. Johan oo xanaaqsanaya wuxuu Neil ku canaananayaa waxa uu geysiyay Andrea qorshahooda. Si kastaba ha ahaatee askari lagu magacaabo Livas ayaa u sharxay in Neil uusan shaqo ku lahayn inuu Andrea ogaado qorshahooda. Waxa kale oo uu sheegay inay askartu caawin karin Katrina. Sidaa darteed Johan wuxuu rabaa inuu kaligiis badbaadiyo Katrina. Askartu waxay u sheegeen inay caawin doonaan inta uu ku guda jiro badbaadinta Katrina. Waxayna soo saarayaan saalada si loogu maleeyo bukaan ay wadaan halka Johan uu xiranayo face mask isagoo ku soo baxsanaya gaari ambulance ah. Laakiin nasiib xumo maalintii xigtay Katrina waxa dib u qabsanaya Andrea iyadoo jidka marayso. Hadda Johan wuxuu ku qasban yahay inuu mar kale badbaadiyo Katrina. Waxa uu xiranayaa oxygen maadaama cufisjiidka hawadu aad u xun yahay. Isagoo soo qaadanaya gaarigiisa. Johan wuxuu ku xirayaa qalabka plutoniumka aalad yar oo uu soo gudbin karto codka iyo waxa uu ku hadlayo Andrea. Waxa uu Andrea halkaas kula wareegaya qalabkii plutoniumka ahaa. Laakiin Johan intuu ku mashquulsanaa mobilkiisa waxa uu galayaa shil. Waxaana lagu shidayaa gaas taasoo keentay in gaariga Johan uu meeshaas ku qarxo. Xogaa kadib waxaan arkaynaa Johan oo ka soo kacay sariir iyo Katrina iyo Neil oo la joogo. Laakiin Katrina uma muuqato mid caafimaadkeedu buuxo. Waxayna imaanayaan garoonka oo Andrea joogo. Iyagoo ka tashtay sidii ay mar kale u soo ceshan lahaayeen plutoniumka. Waxayna halkaas ku dagaalamayaan ciidanka. Laakiin ciidanku markay ku soo bataan waxay isaga soo cararayaan meesha. Maalintii xigtay Bria waxay u sheegaysaa in Andrea uu gacanta ku hayo hub awood u leh inuu burburiyo dunida. Dhowr saacadood kadib Johan iyo Neil iyo waliba Katrina waxay qorsheynayaan sidii ay ku dili lahaayeen Andrea. Waxaana loo xilsaarayaa Katrina inay disho Andrea. Dhanka kale Johan iyo Livas waxay qorsheynayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen qorshaha Andrea. Halka Katrina ay dib ugu noqon doonto Andrea. Andrea uu soo dhaweynayaa maadaama ay ahayd xaaskiisii hore. Livasna wuxuu ciidanku u sharxayaa qaabka uu howlgalku u dhici doono. Johan iyo Neil waxay noqonayaan hal group oo looga baahan yahay inay joojiyaan in bamka weyn aanu ku rakibin plutoniumka. Halka Livas iyo kooxdiisu ay dhanka kale ka dagaalamayaan. Katrina waxay weli qorsheynaysaa habkii ay ku dili lahayd Andrea. Dhanka kale ciidanka waxay isweydaarsanayaan rasaas iyo qaraxyo soo rogaal celis ah. Waxay u egtahay saacadda qaraxu inuu dhow yahay. Waxaana loo baahan yahay inay joojiyaan qaraxa intuusan adduunka u gudbin. Johan iyo Livasna waxay u dhuumanayaan gudaha. Ugu dambeyn Katrina waxay ku guuleysanaysaa inay disho Andrea iyadoo biyaha badda ku dhex tuurayso. Waxaana halkaas ka soo badbaadinaya Duuliye Maahir. Johan iyo kooxdiisana waxay ku guuleysteen inay qaraxa joojiyaan oo ay ku ekeeyaan goobta ay ku sugnaayeen oo kaliya. Livas wuxuu qalqaybinayaa plutoniumka oo nin waliba dhinac buu u dhaqaaqayaa. Ugu dambeyn filimku wuxuu ku dhamaanayaa Bria oo la yaaban sida uu ku badbaaday Johan. Fadlan intaan haddaad nala soo gaadhay nagu soo biiro subscribe noo saar channelkeena Bandarbalala.